بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولاليga Soomaaliyeed meel baad joogtaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan. waxaan rabaa hal arrin inaan idin wadaago in bulshada Soomaaliyeed runtii dhibaatada faraha badan ku jirtay muddo 30 sano ah waxyaabaha dhibaatada galiyay waxa kamid ah waxa loo yaqaan muxuu ahaa in la isliido oo qofka kale walaalkiis uu liido diin ahaan iyo sharci ahaan waa wax dambi ah oo xaraam ah in qofka la xaqiro la liido waa foolxumo diintana runtii mowqif adag ay ka qaadatay xadiiskani wuxuu عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قف waxaa dhibaato shar iyo dambi oo lagu filan in walaalkiisa muslimka uu xaqiro sideeda marka ma banaana dadka in la liido oo la xaqiro waa wax dambi oo falxumo ah sidoo kale waxay kamid tahay waxyaabaha Soomaalida ku dhacay ee dhibaatada dhaxashiye ay qayb ka tahay hal qisadan soo qaato Soomaalida ku dhacday ninkii soo saaray geedka loo yaqaan mariidka wuxuu ahaa cilmi baaris Soomaaliyeed wuxuu ogaaday geedaha markii la isku dardaro sunta noqon kara ayuu soo saaray wuxuu soo saaray waxa loo yaqaan mariidka markii uu soo saaray wuxuu u leeyimid dadkii iyo bulshadii ayuu la soo dhaxgal wuxuu yiri arintaas aan soo ogaad markii la rabay in wax laga dhageysto yaa waxa lagu yiri adiga soo reer hebel ma tiid inaga reer hebel waxba kama dhageysan ordo inaga ninkii isaga waa la xumeeyay halkii la rabay in la bogaadiyo oo loo bago taa ma dhicin muxuu ahaa wuxuu kala kulmay muxuu ahaa in la liido iyo dhibaato kala kulmay ilaa hadda lama garanayo wax mariidka lagu dabiibo oo qofka muxuu ahaa dhibaatada mariidka ay gaartana ilaa hadda lama garanayo wax lagu la tacaalo taayada waxaana dhaxashiyay waxay tahay waa liiditaanka dadka la liido Ali Xuseen oo kamid ahaa ururkii laagada yaa barigii Soomaalida ay ku jirto gobonimo doonka yaa wuxuu arkay qabiil Soomaaliyeed oo halgankii lagu jiray ka dhiga adeegay isagoo marka Ali dadkii wacyigelinta u qaabishnaa isagoo dadka la hadlay yaa mar qor wuxuu hadalkiisu ku soo daray cilmi baaraha Soomaaliyeed iyo sida bulshada u dhaqantay Ali hadalkiisu waxa kamid ahaa Soomaaliya qiyaas daran idinkas qusheeye ninka qabidka soo saaray mariidkan qaraarka ah ninkii u qooniyay ama dhiiga kaga quba dawa lagu qaraarshiyo qiil lama su'aaline qabkiinay xumaaba qarki idinka tuuray warhooy ceelka nala qodo marba lagu qaboobay hadalada waxay ahayn hadaladii Ali uu kula hadlayay qabiilka Soomaaliyeed marka waa foolxumo ilaa maanta inaan garan weyn wax mariid lagu qool yaani qofkii uu mariid uu gaaro dhiigiis wax lagu la tacaalama garanayo maxaa arinta ay nagu qabato waxay nagu qabatay dadka oo la liido la raad maxaad ogtahay maxaa taqaan waa foolxumo inteeda la eg sida darteed waa inaynu ka guurnaa dhaqanka foolxumada ah ee diinta iyo shariicadeena suuban islaamka ka fog ee liiditaanka inuu ka fogaana ee leeyahay qofka maxaa waxba ma ogid ee leeyahay laga yaabo mar qaar la yiraahdo muxuu ama la diido in gabdhaha loo guuriyo ama in laga guursado in la yiraahdo muxuu ahaa waa foolxumo waxaan maanta tusaale soo qaadan karnaa dhibaatada dalkeena ka jirto waxa qayb ka ah waxa loo yaqaan nidaamkan 4.5 la leeyahay ee 4.5 la leeyahay waa foolxumo waa ayaan darro inteeda la eg sida awgeed dhammaan Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in dadka aan la liidin isla markaana aan ka guurno nidaamka foolxumada ay gardarada ah aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.